بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال ميل كستو aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan idinka diyaarinay bal hadda inaynu ogaano xaaladihii kala dambeeyay iyo heerka uu marayo xanuunka COVID-19 sida daawadayaal aad la socotaan oo idin muuqata waxa stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland ugu la sugan Xuseen Aadan Cige Deyr oo مسؤولية كردوان كسقط تدلك الجمهورية الصومالية حتى سأح حوجيها جدي ذا كهرتجا إيو مارين تحنون ككون في السجالية طبعا أن مرك هو حسين كسودو استوديوها تلفزيون كبرنك وأنا هاي أبنا مع سنتين وهذا واحد بالشدة تفاصيل كسيسة إن حالته وجودن بيجي حنون ككون في السجالية طبعا تدلك الجمهورية الصومالية بسم الله الرحمن الرحيم لما نمضي جمهورية الصومالية مالك سيكون شباب بنو سلامية سيدة دكتور هاي حنون كفر سجالية طبعا وحو لبعتهم فربنا بودية دكوا هيا لبعض السنة وجودن بينا ويران 5 مليون أوقف الدنيا كاملة بينا الدنيا كاملة أيها كودنتي 5 مليون وحوي حنون كني سامين توكل هي نقالها تبلشة تهور المركة تسلح قلقة تسكسوعتها أنت بوين كودا دركسنا هذا ينصون قناة جمهورية الصوماليland وحكمت باش عالمك ولو إن أنا قنصي هاي سنة هذا نوحي بلشة عالمك خصيان وين خصيان حنونكو وهو سنة كي لبض كوني سقالتهم كبيشي ديسمبر دبي غدي أي الدنيا دلوجا أي الدنيا دلوكسوق بيرا أما لوجو هلاي وضلك الشينا لابوراتوري كيالا مقالة ووهان لا أي لاجه هلاي وحن وهرامبا sidoo kolba u sii fidiyay waxa weeye inaga bishii 3 2020 18 madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu magacaabay guddi heer qaran oo loogu talagalay inay la tacaalaan ay ka hortagaan ay maareeyaan xanuunka coronavirus marba heer buu soo marayay mararka qaarkood kor buu ka mararka qaarkood hoos buu soo dhacay wajigii koowaad waynu aragnay sanadkii 2020 wajigii labaad isla 2020 buu soo maray إلى بشي الصدحات أفراد سنة كانوا كجرنا تبينا بشي شناد يلحاد يتضبط سنة كانوا كجرنا هوس بوداي وحينك أنا كجرنا وجه كدوم وجهي هور وجهي هور وحنوكم معلبة معلتك هذا ليس وجدك قفك بنعلم كولا قبسنية تو عجائب سنة ما قرن سحنون كانوا وليه وحوي مربى من المجهول مربى وجه عصب الله صوب حياة مربى ما قرن سنوع بيسكو بدلية تلال والله لا الدنيا تلال ويسوى صارتي لكن سو واحد مودا نوع عصب وقرنتي إنديا لقى هلا يدل ساوث أفريقيا لا يراي الدولة يودن كإنجليز لا دلتا فاريانت والنوع كم إذا حنون كان نوع عنك وجودن بي نوع عنك وجودن بي كاسمر كاي مكان نجا بلا بشي أغسطس سبتمبر أكتوبر أنا كجرني تبعد فربنا بقى وصار دعي رون عندي دب بدنا ودنتي لا ليه تنقف على بلا بلاد ما بدنا وجودن بي ودنتي مركا وحوي حلو مقارنة حاليستي سولية خطرتي سولية هاي دبت كلية جفتا وحوي أنا قدي أهانا أنه أجنى هاي إني مقارنة عرقلات كنت هاي إسلام مركا أنا يدير كلمة سينو حنون كفيدو حبدقن كيقابنا لولاد كي بلشدينو ودي سنت هاي أحقف كي إنه متى أفساب حلني بلشدينا نكلا فوقانين بلشدينا متى أنه ونو شيء وضرهاني ومضحان مركا ودهان با dhibaatooyin ka waqtigan xaadirka oo inagu hay xanuunka COVID-19 aad buu badan yahay dad aad u fara badan baa soo dhacay hadii 100 qof la baaro 100kiiba waxa laga helayaa 100kii qof 16 17 ilaa 20 qof ayaa xanuunka ku jira oo laga helaa guud ahaan ba 6 gobol ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland qalabkii lagu baaray mashiinka PCR ka lagu yaala waa lagu baaraa inta aan ku sheegay waxa weeye cidii inta xanuunka iska dareentay oo tagtay dhakhtarka iyagu iska soo baaray dad badan oo qaba oo dhakhtarka tagin baa jira oo soo baarin laakiin si xanuunka qaba fidinayna taasina khatarteeda leedahay waa hagaag xuseen bal waxaad ka warantaa tirada aad sheegtay marka labadii bilood ugu dambeeyay waa 60 qof inta dad loo yahay dhimatay wasaaradda caafimaadka diiwaan gashay iyadoo talaalkii waqtigan socdo oo dadkii intoodii badnayd la hadalhayo oo la wacyigelin lagu sameeyay inay qaataan maxaa keenay marxaladdan wajigan saddexaad ee xanuunka la yimid talaalkiina dadka qaarkii qaateen haddana in
waxa weeye dhacdo caalamka oo dhan ka socota xilliga qaboobaha waxa weeyaan xanuunka kor buu soo kaco waad aragtay haddii bisha tobnaad la gaadho bisha sagaalaad dabayaaqadeeda iyo bisha tobnaad koob iyo tobnaad laba iyo tobnaad wixii ka dambeeya ilaa bisha labaad qabowgu markuu yimaado nooc ka mid a hargabka ayaa badanaba aynu arki jirnay xanuunkani isbededelka samaynayo ayaa waxa weeye innagana lafteenana wuxuu inagu soo noqday oo mar kale kor u kacay mar saddexaadkii kor u kacay sida sheegay bishii sideedaad iyo tii sagaalaad iyo tan tobnaad aanu ku jirno run ahaantii intaa dadka aan sheegay ilaa 60 qof ku dhow waa inta keliya ee isbitaalada ku dhimatay 6 gobol ee la ogyahay degmooyinka iyo gobollada jamhuuriyadda Somaliland la ogyahay inay qabaan xanuunkaasi xanuunka dabadna u dhintay waxaa jira dad fara badan oo dhici karta inay guryahooda ku dhinteen oo aan xanuunkan iyagoo aan dhakhtar tagin khatarta kale jirta waxa weeye in ummaddu haddii ay ma garanaysaa xanuunkan qofku inuu dareemo inuu dadka dhex gelin qaab nololeedkeena ayaan wuxuu noo suurtagelinayn haddii aynu 7 qof ay guriga ku wada nool yihiin dee qof walba qol ma heli karo marka in loo hoggaansamo fariimaha caafimaadka ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay ma garanaysaa ay bulshada ku wacyigelinayso wacyigelinta in kor loo qaado inay bulshada qof walba xil iska saaro u hoggaansanka iyo badbaadada ilaahay baa badbaadahaye in la isbadbaadiyo ayaa mataqaanaa mudnaantu ay tahay xanuunkana wadamadii awoodda lahaa ilaahay baa awood lehe dee matala reer galbeedka ama technologiga xagga caafimaadka hore uga maray weli haddaa way la tacaalaya xanuunkan waxa weeyaan dhammaan nolosha oo dhan saameyn buu ku yeeshay inagoo awood uma lihin in nooc kasta nolosha ka mid a aynu xidhno oonu iskuullada xidhno oon bisinisada xidhno oo aynu isku socodka xidhno oo aynu gaadiidka xidhno oo laysma booqan nidhaa wax walba inaga suurtagal inoo maaha waxa weeyaan saamaynta dhaqaalaha uu inaga inagu samaynayo ayaa waxay ka badan tahay taw cudurku inagu keenayo marka qofkii yoomiyaha iyo quutal duruugiisa ka helay dee guriga joog lama odhan karo laakiinse waxa weeye keliya nala ay taala guddi ahaan inaanu dadka ku dhiirigelino inay u hoggaansamaan fariimaha caafimaadka waa tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay xuseen aadan cigi dayr xogayaha guddida kahortaga iyo maaraynta xanuunka Covid 19 bal hadda waxaad ka warantaa dad badan baa isweydiinaya sidaad carabowday xilligan talaalkan Covid 19 u socda waxaad sheegtay in xilliga qaboobaha marka talaalkii iyo xilliga qaboobaha si la isu waafajin karo horta talaalku waa sida keliya ee xanuunkan lagaga hortagi karo talaalku dhimashada ma baajiyo ilaahay baa qofkii dhimanay maalinta dhimanay laakiinse waxa weeye qofkii xanuunkii talaalku wuu ku dhici karaa laakiinse 90% qofku umana dhimanayo dhakhtarna uma gelayo waxa weeye sida talaalada kale caadiga waa ka hortag talaalku marka dalkeena uu yaala laba nooc baa yaala nooc la yiraahdo AstraZeneca oo 2 jeer la qaadanayo iyo nooc la yiraahdo Johnson & Johnson oo Mareykan Johnson & Johnson waa hal mar oo kaliya qaadanaysa marka ka wasaaradda caafimaadku waxay u qoondaysay dadka miyiga jooga iyagoo aan 2 jeer soo noqon karayn in xanuun matala talaalka la siiyo marka bulshada waxaan ku dhiirigelinaynaa oo kula dardaarmaa in talaalka la qaato gaar ahaan dhammaan shaqaalaha dawladda meel kasta ka shaqeeyaan hay'ad kasta ka shaqeeyaan waa laga maarmaan inay talaalka qaataan ciidamada kala duwan ciidamada qaranka qaybooda kala duwan talaalka inay qaataan waa laga maarmaan dadweynaha shacabkeena inay talaalka qaataan waa laga maarmaan sababtoo awal bisheedii talaal lama haynin wax lagula tacaanana lama hayn laakiin maanta talaalkii baa inoo yaala talaalku markuu qofku qaato waxa dhici karta inuu ku dhaco laakiin qaab hargabo kale ugu dhaco oo aan u dhimanin haddii aanu ilaahay u qorin ama aanu dhakhtar u gelin marka fariinta ugu muhiimsan ee waqtigan xaadirka afsaabkii kala fogaanshihii faraxalkii inaan la isku soo ururin waxaa mataqaan noo dheer oo number 1 noo ah inaanu dadweynaha ku wacyigelino in la qaato talaalka waa hagaag kasakow arrimahan aad sheegtay waxaa jirta dad iyagu talaalka laftiisagaba ka qabasas ama inta badan aan aaminsanayn heer intee leeg baa idinku ka xukuumad ahaan aad ku kalsoon tihiin talaalka inay dadku qaataan xanuunkan Covid 19 su'aal aad u wanaagsan weeye arrinta ka shakiga iyo matqa muhmalgelinta talaalku waa dhacdo caalami ah wadamada Mareykanka Brazil India Yurub galbeed oo dhan dad baa jira ururo awood badan oo ka soo horjeeda in talaalka la qaato waxay ku sababeynayaan arrimo shakhsiya iyo arrimo aaminsan iyo arrimo diineed fariinta ay guddida heer qaran ee ka hortaga xanuunka 19 ee madaxweyne ku-xigeenku gudoomiyaha ka yahay u gudbinayso iyadoo kaashanaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa weeye talaalku waa safe waxa weeye talaal wax yeelale maaha badbaada Allah haya waa talaalkan waxa loogu talagalay inuu xanuunkan inaga badbaadiyo wadamada qaarkood baa la talaalkii
beesha caalamku weli aqoonsi inamaysin haddana xanuunka ku dhaca Somaliland waxaa dhici karta inuu mataqaanaa dacalada adduunka haddii aan dadka la tallaalin uu ku faafo marka fariintaydu waxa weeye tallaalku waa nabadgelyo waa safe waxba yaraatee dadka qaarkood baa aaminsan dhashu yareeyaa dadka qaarkood baa aaminsan 2 sano ka bacdi baad u dhimanaysaa dadka qaarkood baa aaminsan muxuu dhiigaagu xinjiro ku samaynaya waxaas waa propaganda waxba kama jiro tallaalku waa safe anaa qaatay cid kasta qaatay marka gaar ahaan dadka meelaha magaranaysa bulshada ku kulanta ka shaqeeya ama yimaada waxa lagama maarmaan inay tallaalka qaataan inta aad ogtihiin ma jiraan dad intii la tallaalay tallaalkaasi saameyn ku yeeshay oo u dhintay tallaalkii may su'aashaasi way fiican tahay dad badan baa isweydiin karaa laakiinse ma hayno weli wax cadayna oo qof tallaal isagoo la tallaalay xanuunkii u dhintay ama tallaalku laftiisa waxyeello u geystay waxaa dhici karta in 10 milyan ama 100 milyan ee qofba waxaa dhici karta qof irbad lagu mudo inuu iska dhinto dad ma garanaysaa ilaahay ku qoray laakiin tallaal awgii qof inta la tallaalay u dhintay wali ma aanan ma aragteen cid intii la tallaalay haddana xanuunkii Covid 19 ku dhacay kulli waxaa jirta baaritaan ay wasaaradda caafimaadku wado oo wali aan mataqan maxsuulkii risalkeeda aan soo bixin oo ah dadka istallaalay intee leeg buu ku dhacaa dadka tallaalka qaatay boqolkiiba intee leeg baa haddana mar labaad ku dhacaa iyo dadkaan tallaalayn in la isaga dhigo marka taa wali ma ogin baaritaankii laakiin uu socdaa waa hagaag inta badan waxaa jira wacyigelin ku saabsan xanuunka Covid 19 intee leeg baad isleedahay xogaye bulshadu way qaadatay inteese ka dhiman maxaa si hortaagan inta badan ay bulshadani wacyigelinta qaadan weydo horta wacyigelintu way hooseysaa ama xagga iyaga ha ka timaado xagga xukuumadda ha ka timaado ama xagga bulshada ha ka timaado taasina waxa ugu wacan xanuunku markuu hoos u dhaco nambarkiisii oo bilaha qaarkood bishii 5aad oo kale iyo bishii 7aad oo kale 2 qof baa laga helay dhowrkii boqol ee qof ay isbaaray 2 qof baa laga helay taasi baa markaa waxay keenaysaa in xanuunku markuu hoos u dhaco ay wacyigelintu hoos u dhacdo xanuunku markuu kordhana in wacyigelinta kor loo qaado laakiinse waxa lagama maarmaana ilaa intuu xanuunkani jiro inay wacyigelintu joogto noqoto masaajidada mataqaanaa imaamadu ay ummadda ma garanaysaa ay ka wacyigeliyaan oo ay yiraahdaan loo hoggaansamo awaamiirta dawladda iyo gudida iyo fariimaha caafimaadka wasaaradda caafimaadku wado fariinta telefoonka waa ka mid oo waxa weeye يعني wacyigelinaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay qofka soo telefoon dira in ma garanaysaa ay fariintaas ku soo dhacayso waxa ka mid ah dadaalada ay wadaan wasaaradda horumarinta wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta qaranku telefishinka iyo raadiyo Hargeysa ay wadaan waxa ka mid ah hay'adaha kale caalamiga iyo muxuu ahaa wacyigelin ay wadaan dhibta waxa weeye wacyigelintii guri ilaa guri albaabka looma garaaci karo waqtiga xaadirka qofka fariinta telefoonkiisa ay ugu soo dhacaysaa meelo badan buu wacyigelinta ka helayaa marka waxa weeye in wacyigelinta kor loo qaado in tallaalka la qaato iyo in ma garanaysa loo hoggaansamo fariimaha caafimaadka ee wasaaradda caafimaadku ay mataa bulshada ku wacyigelinayso waa lagama maarmaan gaar ahaan meelaha ay bulshada ku kulanto waxaa muhiim ah in qof walba uu ku dadaalo inuu mas'uuliyadiisa qof ahaaneed ee saaran uu ka soo baxo oo haddii xanuunka qabana uu gurigiisa joogo haddii aanu qabina uu afsaab xidho oo ma garanaysa qofku intuu kari karona uu ka fogaado qofka kale waa hagaag hadalkaaga waxaa ka mid ahaa xog haya in wacyigelintu ama xaggiina ha ka timaado ama meel kale ha ka timaado ay hooseyso idinkaaba guddidii xanuunkan oo xil saaraa ah yay tahay inay wacyigelin kala samayso ta kale maxaa sababay in hoos u dhacaas ku yimaado waxaa hoos u dhaca waxaa sababay kolba xaaladda xanuunkay ku xidhan tahay xanuunku hadduu kor u kacana oo waad aragtay intaasoo jeer baa fariinta telefoonka laga saaray intaasoo jeer baa ma garanaysaa boorarkii lagu dhejin jiray derbiyada ama fariimihii raadiyo Hargeysa iyo telefishinka qaranka ka bixi jiray iyo hay'adaha kale warbaahineeda madaxa banaanba waxay ku xidhan tahay kolba xaaladda xanuunku ma garanaysaa ay lagu hayo imika waqtigan xaadirka bishii 8aad tan 9aad 10aad iyo bilaha soo socda waxaan filayaa in xaaladdu sidaas ay ahaan doonto marka wacyigelinta waxa weeye kolba waxay ku xidhan tahay marxaladda uu xanuunku marayo iyo wacyiga markaa taagan marka hoggaansanaanto inay mataqaan dadku ay u hoggaansamaan ama ay qaataan wacyigelintana waa arrin ku saabsan dhaqankeena qaabka dhaqankeena ama ma garanaysaa qaabka wada noolaashaheena ayaa wuxuu ma garanaysaa mararka qaarkood ama dhiirigelinaya ama hoos u dhigaya in wacyigelinta mataqaan sideedii ay u fusho guud ahaanna 10kii bisha
haddii waxaanu soo saarnay go'aamo guddida la xidhiidha oo ah fayaqabka iyo badqabka bulshada jamhuuriyadda somaliland loogu talagalay masaajidada in la kala fogaado meelaha iskuullada in la kala fogaado wixii suurtagala afsaabka in la xidho meelaha bulshada iskugu imanayso in daaqadaha iyo albaabada la furo afsaabka la xidho jeermistilahana la isticmaalo waxaa kaloo ka mid ah in tallaalka la qaato oo dhammaan shaqaalaha dowladdu meel kasta ay ku sugan yihiin ay tallaalka qaataan xafiis dowladdu ay leedahay noocu doonay heerku doona ha ahaadee inaan afsaab la-aan la geli karin waxaa kaloo ka mid ah qofka la caddeeyo ee wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay caddeeyaan inuu u dhintay xanuunka covid-19 inaan sidii caadiga ahayn loo aasi karin waxaa u tababaran wasaaradda caafimaadka iyo hay-ado kale loogu talagalay dadkii dhibaatada waxa weyn qof la ogyahay inuu covid-19 u dhintay ayaa ehelkiisa intay u tagaan waa la taabanayaa waxa weye sidii caadiga ah la doonaya in loo aaso taasina suurtagal maaha arrintaa guddida go-aan bay ka soo saartay oo ah inaan sidii caadiga ahayd loo aasi karin qofka la caddeeyo inuu u geeriyooday xanuunka covid-19 loo daayo wasaaradda caafimaadka ama qof kasta oo tusaale ahaan haddii qofku geeriyoodo in horta la hubiyo mise idinku waad ka war haysaan xaaladii qofka gurigii qof covid-19 qaba ma ku dhiman karaa wuu ku dhiman karaa taa kama waro keliya waxaan anuu sheegaya kuwii eeg qof kasta oo covid-19 u dhintay wasaaradda caafimaadkuna ma ogaan karto guddiduna ma ogaan karto laakiinse dadka la caddeeye ee mashiinka lagu taskaray b c r-ka la ogaaday inuu covid-19 qabo u geeriyoodo ee la caddeeyo looma ogolo inay ehelkiisu aastaan waxaa loo ogol yahay ugu yaraan ugu badnaan 10 qof inay meel dheer iska istaagaan oo qofka ma garanaysa meesha lagu aasayo ay soo calaamadsadaan marka 10 qof halka kasoo jeedaan waa ehelka gaarka ee mataqaan qofkaas haddii qofku ehel leeyahay dacayladiisa cidda aasaysa oo wasaaradda caafimaadka ayaa aasaysa oo u aasaysa habraac iyo brotocoolkii loogu talagalay in lagu aaso qofka covid-19 u dhinto sababta sida loo yeelayaa waxaan filayaa inay ka mid tahay wacyigelinta bulshada dhinaca ka hortagga xanuunka covid-19 wararka aanu ka helayno deegaanada ka baxsan magaalooyinka waxay sheegayaan in aanay helinba wacyigelino ku filan guddidu ma baxdaa oo maxaa sababay dadka laftigooda inay arrintaa ka caawinaan dalku horta wuu weyn yahay dal aada u weyn weeyaan meel kastana wacyigelintu inay gaadho waa lagama maarmaan haddii ay gaari weydo lafteedu waxa weeyaan de waa wax dhiman oo shaqo dhiman oo loo baahan in la qaado ma ogtiin laakiin anigu waan ognahay horta waan ognahay inaanay iska dhaaf mataa tuulooyinkii magaalooyinka waaweyn ee 6 gobol ee magaalooyinka waaweyn laftooda ayayna wada gaarin marka waxay ku xidhan tahay kulba awoodda qaranka uu leeyahay ee ah inay magaranaysa bulshada oo dhan la wada gaarsiiyo wacyigelinta inta qof ee raadiyada dhageysata inta qof ee social media ku xidhan inta qof ee ku xidhan mataa telefishinada xaaladdu iminka maanta 10 sanadood ka hor sidaynu ahaan jirnay maaha qof walba waxa dhici karta telefoonka in fariintiisa ugu soo dhacdo inuu magaranaysa kolba xaaladii jirtay la socdo marka waxa naga go'an inuu wacyigelinta dardar gelino oo aanu kor u qaadno oo min heer degmo heer gobol heer tuulo ilaa dadka miyiga jooga ay raadiyoga ka dhageystaan kolba xaaladda covid-19 ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland meeshay marayso marka gacmahooda jir wax ku gooyaan shicibka laftiisa waxa looga baahan yahay inay qaataan inuu qof walba mataa qofka kale uu mataa intii itaalkiisa uu sheego yiraahdo xanuunkaasi waa xanuun hadilaahay halise adna iska ilaali qoyskaagana ka ilaali waa hagaag xuseen aadan ciga deyr xogaye bal markaan iskarab dhigno dhinaca geerida ama saameynta xanuunkan magaalooyinka waaweyn ee dalka inkastoo bulshada ay isugu timaado magaalooyinka iyo dhinacii miyiga iyo deegaamadii kale saameynta uu dhinaca miyiga ku leeyahay inta laagto saameynta miyiga ku leeyahay dadka miyiga waa dad magaranaysa badanaaba socda isku ururkoodu oo mataa aanu jirin xanuunkan meesha waxa kaliya ee ku faafa waxa weeye taabashada neefsashada iyo magaranaysa in dad meel ay dadku isugu soo xoomaan ama ay isugu soo ururaan qof qaba uu mataa gaarsiiyo dadka kale marka boqolkiiba 50 in ka badan magaalooyinka waa magaalada Hargeysa for example hadii 100 qof la baaro 45 qof magaalada Hargeysa laga helo waxa ku xiga mataqaana Burco ama Boorama ama Berbera marka magaalooyinka waaweyn ayuu xanuunku ku badan yahay marka loo eego miyiga sababtoo bulshadiiba magaalooyinka waaweyn bay ku badan yihiin bulshaduna meesha kasta bulshada isugu soo ururto ama ay ku kulanto haday tahay guryaha hoostooda hoteelada iskuulada meelaha mataqaana businessyada suuqyada waxa dhici karta inuu sidii u gudbaa ay ka dhib yartahay sidii ugu gudbiyo dadka miyiga ku nool waa hagaag xogayaha guddida ka hortagga iyo horumarinta xanuunka covid-19 xuseen deyr fariinta ugu dambaysa ee aad bulshada u jeedinaysa ee ku saabsan xanuunka covid-19 adigoo ka faa'iideysanaya
waqtiga maxay tahay aad baad u mahadsantahay waa fursad qaaliya telefishinka qarankana waxaan uga mahadnaqayaa fursaddan iyada fariintan u diray anigoo ah xogayaha guud ee gudaha heer qaran ka hortagaya maareynta xanuunka COVID-19 waxa weeye ilaahay baa badbaadahaya qof kastoo inaga dhintaa ilaahay baa u qoray laakiinse haddii laga hortagayo waxaa muhiim ah in xanuunkan uu qof walba iska badbaadiyo oo qofka qaba uu qoyskiisa ka badbaadiyo saaxiibadiisa ka badbaadiyo hooyadii iyo aabihii oo jilicsan aanu ula tegin waxaa lagama maarmaan qofku inuu afsaab xidho in la farxasho in la kala fogaado in loo hoggaansamo fariimaha caafimaadka telefoonka kusoo dhacaya ayay wacyigelintoo dhanba ay ku urursan tahay ta ugu muhiimsan waxa weeyaan tallaal baa inoo yaalla tallaalka yaan laga baqin tallaalku waxa weeye waxaba yarta waxyeellaa male aduu naftaada badbaado u yahay fariintan u diraya waa fariinta waa hagaag dhinaca baadhista waxaad ka warantaa dadka qaarkood waxay sheegaan in ay lacagtu qaali ku noqoto kaarhka la qaadanayo arrintaa ka waran anu waxaan hubaa in somaliland meelaha ugu jaban adduunyada ay ka mid tahay $40 baa laga qaadaa qofka ma garanaysa dadka dhoofaya weeye laakiin dadka caadiga haba yaraatee wax lacagoo laga qaadaa ma jiro haddaad maanta mataqaan iska dareento calaamadihii xanuunka COVID-19 COVID-19 haddaad dareentood ma garanaysaa tagto dhakhtarkaad geyso tira halay baadho waa bilaash haba yaraatee wax lacagay ma jiro laakiin dadka qaarkood way sheegaan waxay sheegaan ma jirto arrintaas anaa cadaynaya waxa weeye haba yaraatee lacag laga qaado qofka oo lagu baadho oo la yiraahdo lacagta bi haddii kale aan ku baarayna ma jirto qof kasta oo reer Somaliland oo marka laga reebo cidda baxaysa way u furantahay qof kasta oo reer Somaliland meesha doonaha ku noolaadee dhakhtarka ugu dhow ee mishiinkaas yaalo mishiinada PCR-ka waxay yaalaan 6 gobol caasimadahooda Hargeysa ku jirto marka qofku haddii xanuunka ka shakiyo wuu tegi karaa haba yaraatee wax lacag lagama qaado haddii ay qofkii lacag ma taqaan la yiraahdo wana ku hadduu noo odhan qofku waan dhoofaya ma garanaysaa caadis kaga baarayo waxa weeyaan waa dembi loomana baahna hadday jirtana hadday dhacdo cabashadiisa qofkaas halkuu annaga ha noo soo gudbiyo guddida caafimaadka wasaaradda caafimaadka meel kasta halkee laydinka heli karo umaanaan samaynin waqtigan xaadirka meel gaara oo cabashooyinkaas laakiinse wasaaradda caafimaadku maadaama ay hay-adda qaranka u qaabilsan tahay daryeelka iyo dabagalka caafimaadka iyo magaranaysa kobcinta caafimaadka wasaaradda caafimaadka meel kasta oo ay ku taallo qofkaas dacwo ka gudbin karaa waa hagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen aadan cige dayr xogayaha guddida ka hortagga iyo maareynta xanuunka COVID-19 oo daawadayaal barnaamijkan nagu siinayay marxaladihii ugu dambeeyey iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 aad iyo aad baad mahadsan tahay